السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونagsan daawadayaal halkani waa dhambalka dunida ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka galabnimo waa galabnimo Arbacada taariikhdu waxay ku beegan tahay 4 bisha 3 sanadka 2026 qodobada xiisaha barnaamijkana falanqaynta wararka galabnimo aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisa aqal oo maanta ansixiyay dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya oo in muddo uu ka taagnaa khilaafkiisa isla markaana si weyn ay kaga soo horjeedeen xubnaha mucaaradka guusha ay Soomaaliya maanta ka gaartay daawadayaal ku falanqayn doona barnaamijkana falanqaynta wararka galabnimo sidoo kale waxaad ku daawan doontaan hadii barnaamij ka noqdo xilbaanada ka soo jeeda maamulka Jubbaland oo shir jareed ku qabtay magaalada Kismaayo oo ku dhawaaqay in aysan qayb ka ahayn ansixinta dastuurka maanta ay si toos ah u basgareeyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya wararka ugu dambeeyay ayaa daawadayaal in haynaa sidoo kale waxaan aad ku maqli doontaan barnaamijka hadii barnaamij ka noqdo xaaladda xildhibaanada ku xayiran garoonka diyaarada aadan cadde kuwaas oo ka soo jeeda maamulka Puntland oo maalmihii ugu dambeeyay cabasho ka ah dawladda federaalka Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale waxaan ku soo kordhay barnaamijka inta wada ku jira ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena falanqaynta wararka galabnimo fadlan hadda ku cusubta YouTube-keena dhambalka dunida subscribe saar sidoo kale page-keena dhambalka dunida soo follow gare xukumo baraheena bulshada si aad u hesho warar degdeg ah u diyaar garooba daawadayaal qodobadaas oo intaas ka faahfaahsan hadii ay barnaamij ka noqdo hagaag mar kale galab wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka galabnimo aan ku bilowno labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si toos ah u basgariyay isla markaana meesha ka saaray ku meel gaarnimada dastuurka ku meel gaarka oo in fara badan murankiisa iyo isqabqabsigiisa uu ka taagnaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhexdooda labada gole baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay 15 cutub oo dastuurka Soomaaliya rasmiga ah waxaana meesha ka baxay dastuurka ku meel gaarka 2012 kaas oo faro la soo qortay iyo Augustine Mihigan oo ku saxiixnaa waxaana meesha ka baxay ku meel gaarnimada dastuurka iyo isqabqabsigii muddada faraha badan leh dalkan ku soo jiray waxaana arintan si weyn kaga soo horjeeda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo iyagu hore u qaadacay kuna tilmaamay dastuurkan mid Xasan Sheekh soo qortay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya imika ka shaqeynayana waxay ku tilmaameen yihiin kuwa caada qaatiyaal waxaase maanta arinta si beeniyay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu si toos ah maanta u basgareeyay waxaana loo arkaa arintan inay tahay guul ay gaareen ummadda Soomaaliyeed maadaama dastuurkii Soomaaliya oo meel gaarnimada ka baxay waxaana arintan ka naxay oo isla markaana si weyn kaga soo horjeeda dhammaan xubnaha mucaaradka golaha mustaqbalka Soomaaliyeed la magac baxay hadii dal joogan hadii dibad joogan waxay u tahay maalin madow maadaama waxa intaas badan ay ku soo taamayeen ay ku soo tacbeeleen qayladu ay kaga dhamaantay waxa inay ay joojiyaan ina wax laga bedelin dastuurka hase yeeshee arintaasi baarlamaanka labadiisa aqal ayaa arintaasi beeniyay 282 xildhibaan oo labada aqal ka kala tirsan ayaa markaasi oo senatarada iyo golaha shacabka iskugu jira ayaa duhurkii waxa ay baas gareeyeen oo ay meesha ka saareen kumbeel gaarnimada dastuurka Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed ayay maalin weyn u ahayd maanta Arbacada si weyn ayaana looga hadlayay dhammaan baraha bulshada iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed guul weyn ayaana lagu tilmaamay baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu arintaasi uu ku dhiiraday isla markaana dastuurkii ku meel gaarka ahaa oo Augustine Mihigan ku saxiixnaa meesha laga saaray dalka Soomaaliyeed uu yeeshay dastuur dhameystiran oo xilliga wixii ka dambeeyay lagu dhaqi doono Jubbaland war ayay ka soo saartay arintaasi war qoraal ay goror ka soo baxan waxay ku sheegtay in Jubbaland cid ku matasha dastuurkaas aysan jirin haday noqon lahaayeen senataro iyo haday noqon lahaayeen golaha shacabka intaba cid ku matasha aysan jirin Jubbaland ayaheed ay ka tashan doonto waxa Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisa ay meesha ku hayaan oo wax ka bedelena wax saameynaya haba yarata Jubbaland ay ku yeelato aysan jirin ayay ku soo saareen qoraal goror ka soo baxay maamulka Jubbaland sidoo kale Jubbaland waxay sheegtay in markii maaldeedku uu ka dhamaado ama xilka uu ka dhamaado hay'adaha dawladda dastuuriga imika jira Jubbaland ayada ka tashan doonto isla markaana ay qaadi doonto wax walba ama tilaabo kasta oo ayada ay kaga tashanayso inay ku badbaadiso dalkeeda waa sida hadalka u dhigtay waxaana arintan lagu tilmaamay inay tahay nasiib darro aad u weyn maamulada Jubbaland iyo Puntland madaxweynayaasha kuwa ka ah sida Axmed Saciidani iyo waliba Axmed Madoobe ayaa si weyn arintan kaga soo horjeeda muddo fara badan ayaa lagu qancinayay in dastuurka ra'yigooda ka dhiibtaan waxa ay ka qabaan ay soo sheegan hase yeeshee waxba waa ku dari waayeen kii 12 ayaan dastuurna waxaan ahayn afkooda waa laga waayay hase yeeshee maanta iyagoo indhahoodu shan yihiin oo soo jeeda ayaa dastuurka Soomaaliya la ansixiyay oo la dhameystiray saasna ku meel gaarnimada kaga baxay shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaana si weyn ay ugu mahad celiyeen labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayagoo ku tilmaamay in arintan tahay guul weyn oo ay gaareen
ummadda Soomaaliyeed maadaama dastuurkii projectiga noqday ee muddooyin fara badan lacagaha fara badan beesha caalamka laga cuni jiray la dhigi jiray dastuurkii baa naga qabiya lacag fara badan la siiya in arrintaas beesha laga saaray oo maantay la soo gabagabeeyay wadanka maanta wixii ka dambeeyana uu yeeshay dastuur rasmi ah ee wadanka lagu dhaqayo si weyn ay arrintaas loo soo dhaweeyay ummadda Soomaaliyeedna meel walba ay joogaan si weyn ay arrintaas u soo dhaweeyeen ayagoona ku tilmaamay baarlamaanka 11aad inuu yahay baarlamaankii haliyeeyo qaran una hiiliye dalkooda iyo dadkooda kana saaray qodax muddo fara badan ku taagneed ummadda Soomaaliyeed ka siibay ayaa arrintaas lagu tilmaamay waana arrinta ilaa xilligan hadaleynteeda ay ka taagan tahay dhammaanba geyiga Soomaaliyeed iyo baraha bulshada intaba hagaag bal markaan haddeen eegno daawadayaal xildhibaanadii ku xayirnaa garoonka diyaaradaha aadan cadde gaar ahaan hotelka airport ee magaalada garoonka diyaaradaha ku dhex yaala ayaa laga soo warinayaa in cabasho aad u weyn ay halkaas ka soo dirayaan live ayaa dabcan halkaas ka soo gelayaan mararka qaar waxaana ku tilmaamayeen dawladda federaalka Soomaaliya inay tahay dawlad oo afduuban yihiin aysan haba yaraatee wax ixtiraam mid ay soo yahay xasaanadii xildhibaanadana ay meel kaga dhaceen wasida hadalka u dhigeen la taliyaha madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay ciidamo si gaar ah loogu diyaariyay waxay kala baxeen hotelka ayagoona dawladda federaalka Soomaaliya ay ku eedeysay inuu ninkaas uu yahay mid ka shaqeynayay kala laaluushid iyo sidoo kale waxyaalo lid ku ah amniga iyo inuu kala furfuro baarlamaanka Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in haddii ninkaas xal aan la qaban lahayn koramka maanta uu sabuuxsamay lahayn isla markaana oo lacag fara badan ku kala farqi lahaa xildhibaanada iyo senatarada ku kala laaluushi lahaa iyaduna arrintaas oo laayn Saciid Dani uu kaga yahay wakiil dhibaato fara badan oo wadanka ku hayay dawladda federaalka Soomaaliya waxay hore ugu ballan qaaday cid kasto amniga lid ku ah in ay soo afjari doonto isla markaana ay sharciga horkeeri doonto hay'adda yeeshee ninkan oo ka dhiga adayga ayaa waayay ugu dambeeyay oo ku sugnaa magaalada Muqdisho isagoona la sheegay inuu lacag fara badan u qeybinay xildhibaanada oo kala laaluushay dhibaato fara badan u geystay hase yeeshee ugu dambeyntii ciidamada dawladda ayaana gacanta ku soo dhigay oo sheegay in ay sharciga horkeeri doonaan hagaag daawadayaal ayaa ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena falanqaynta wararka وظاهر أبشر حسن فضل هذا كل عصبة يوتيوب كنا دبالك الدنيا سبسكرايب صار سيدو كله بيج كنا دبالك الدنيا سوفر وقريه رمضان الكريم صوم مقبول هذه يوم ما زنت هيدا وده